بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ماسك تبارك وتعالى نعموين كيسان تركوب كالهين إيا كهر لما يسترنانتي ساعة لمنانتي عيبت لهين. الله تبارك وتعالى وكو أمانيهي وأنكم هسيهي. انت كدب وعن شعلهي إنان ولا لها وركيجي هذا الكي قاعد دونه وشيغو لسعدسيو ورقليو إن أن بلوني dhismaha masaajidka abubakr sidiiq ee loo yaqaano sig street magaalada nairobi ku yaala xaafadda islii. waa masaajidkii ay dad badan garanayaan, runtii taariikh qiimo badanna ku leh adeega ummadda muslimka ah iyo diinta islaamka intaba. masaajidkaas oo muddo dheerba runtii dadkii ku tukanayay, ku cibaadaysanayay, ku ciidhiyamay, ku filaan waayey, ayaan go'aansanay in la waasiciyo masaajidka dib loo dhiso. hawshaasi inaan gudagallay oo aan bilownay oo aan ku dhex jirno ayaan insha allahu tacaala dadka khayrka jecele walaalaha doonaya inaan u gudbiyo. masaajidku wuxuu ka kooban yahay ilaa 5 boos. qorshuhuna waxa weeyaan in laga dhiso ilaa 8 ilaa 7 dabaq in laga dhiso. intiisa badan qaybo lagu tukaduu noqonaya. waxaa raacsanaan doona qaybo waxbarasho loogu talagalay iyo qaybo kaloo loogu talagalay inay masaajidka wax ka soo galaan oo kharashkii lagu wadi lahaa laga helo. mashruucaas oo sidaa u dhammaystiran oo kharashaad u badan u baahan. talagalku waxa weeyaan in ummadda uun inta badan soomaalida ah dibadiyo guda meelay joogtaba mashruuca dhismihiisa in insha allahu tacaala ay isu taagaan sidii khayrkii wanaaggii looga bartay inay mashaariicda diinta iyo khayrka isgarab taagaan iyo adeega bulshada mujtamaca muslimka ah. hawshaas waa nagogeysiis. waxaana jecellahay insha allahu tacaala in nagala soo qayb qaato. 2 qaybood buu masaajidku u dhismi doonaa. qaybta hore dhismaheeda waxaan bilaabi doonaa saan rajaynayno ilaa bisha 3aad sanadkan soo socdee 17-ka. qaybta kaleetana insha allah qaybtaasi markay dhisanto lagu tukado ayay iyaduna dhismaheedu bilaabi doontaa insha allahu tacaala. 2 qayboodna kadib hal qayb bay isla noqon doonaan, hal masjid oo isku mid ah ayay noqon doonaan insha allahu tacaala. masaajidda iyo dhismahooda waad garanaysaanoo nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxii masjid ilaahay dartii u dhisa isagoo ilaahay dartii ula jeedoon dan kale lahayn, xataa meel yaroo shimbiri fadhiisataba ha la ekaado ama ha ka yaraadee, ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa ayuu guri uga dhisaa. masaajiddu waa dhulka meesha ilaahay ugu jecel yahay tabaaraka wa tacaala. dadka masaajidda camira, dadka dhisa, dadka ka shaqeeya, dadka ku cibaadaysta, ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaala uga markhaati kacay inay mu'miniin yihiin. waxaa kaloo uu u qiray inay yihiin dad hanuunsan. sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah, waa meesha ugu muhiimsan ee nolosha mujtamacaadka muslimka, masaajidda ugu muhiimsan. sidaas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi magaalada madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday, isagoo gurigu uu dhisan lahaayee degi lahaa, guriguu degi lahaa baan dhihi lahaa, isagoo weli dhisanin
ayuu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ka bilaabay inuu masaajidkii dhiso oo aasaaso masaajidkiisii rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka kadib buu nebigu deegaan iyo meel isagu dega iyo marka aad bay muhiim u tahay nolosheenna waa guryihii rabbi tabaaraka wa tacaala in marka lagu dadaalo wax lagu darsado oo dadkii dhintay iyo waalidiintii wax loogu daro waa sadaqa jaariya ah nebigeenu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamay inta laga faa'iidaysanayo goobta iyada ah ruuxa qabrigiisa waxyaabaha ugu soconaya 7 shay oo qabriga ruuxa ugu soconaya ayuu nebigu ku daray sal alla alay wasalam aw bana masjidan lilah ilaahay dartii ruux masaajid u dhisay marka masaajidka abubakarna waa taqaanaa siiska ciddii garanaysa waa masaajid mar walba jamaacadiisa iyo camirnaantiisa iyo ku cibaadaysigiisa runtii ay yar tahay masaajid la midaba uu yaryahay mar walba waa masaajidku meel lagaga tukadaa laleeyahay salaadaha shanta ah waa ilaahay tabaaraka wa tacaala miise uu siiyey weeye intii timid iyo intii aragtay baa garanaysa risaaladiisa iyo khayrka ka socotay ummadda dowrka iyo kaalinta uu uga jiro marka khayraadkaasoo dhan in lagaga soo qayb qaato oo ruuxu aakharo wax gashado insha allahu tacaala fariintaas inay idin soo gaadhaan jeclahay inaad ka soo qayb qaadanaysaan insha allahu tacaala shakigama jiro dadka muxsiniinta khayrka jecel waxaan jeclahay marka inaan idiin tilmaamo waxaan wadnaa hawshaasi socon doontaa masaajidka dhismihiisu intuu socdo dhan waa wadi doonaa hadda habeenadan masaajidkaanu ka wadnaa fundraisan ama jamca tabarucaad waxbaan ka ururinaynaa waxaan jecel lahay dadka dibadaha jira oo khayrka jecel oo wax soo diriya isxilqaamaya inay isgaadhsiiyaan laguna soo diro insha allahu tacaala xawaaladaha lasoo isticmaalo lagu soo diro soo isticmaashaan insha allahu tacaala magacyadan aan idiin sheegayo aad ku soo dirtaan iyo nambaradan magaca koobaad waa cabdirashiid axmed cabdille nambarka telefoonkiisuna uu yahay eber 7 ka labaadii waxa weeyaan hilaal shariif weyd oo isagana nambarkiisu yahay eber 7 aan dhihi lahaa eber 7 inka saddexaadii waxa weeyaan xuseen xasan cabdi isagana waa eber eber 912 magacyada kolba kii idiin fududaada iyo nambaradaas ayaad wixii aad masaajidka ugu deeqaysaan aad ku darsanaysaan ku soo diraysaan iyo xawaaladaha kolba tii idiin fududaata magaalada nairobi insha allahu tacaala iyagaasaa soo qaadaya kadibna khasnadda masaajidka iyo meeshii loogu talagalay ayay soo gaadhsiinayaan annagana insha allahu tacaala waa kor joognaayo oo waa ka warhaynaynaayo annagaasay insha allahu tacaala marka ugu dambaysa na soo gaadhi doontaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan intaa kadib idinku duceeyo wixii aad mashruuca kaga soo qayb qaadataan in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu miisaanka xasanaadka idiin saaro sadaqa jaariyana ilaahay idinka dhigo adduun iyo aakharana ilaahay idinku dembi dhaafo khaatimadana ilaahay idinku hagaajiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr adduuni mid aakharaba idinku siiyo shar adduuni mid aakharaba allah idinkaga xifdiyo inta xanuunsanaysa allah idinku caafiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala khaatimada allah idinku hagaajiyo qabriga allah idinku waasiciyo hana idinku nuuriyo qiyaamadana ahwaasheeda allah idinkaga xifdiyo siraadka midii aad gaadiid ka dhigan lahayd sadaqada allah ka dhigo midaad carshiga ku harsan lahaydeen maalinta qiyaamada allah ka dhigo ilaahay jannadiisa ha idinku geeyo cadaabkana allah idinkaga xifdiyo naftiinna awlaadiinna diintiinna masaalixdiinna adduunka intaad joogtaanna allah idinku xifdiyo shar adduuniya mid aakharaba allah idinka xifdiyo aad baad u mahadsantihiin muraadkiinna khaaskaana allah idinku fududeeyo waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaan idinka sugnaaba wax weeyaan inaad mashruuca nagala soo qayb qaadataan ama si degdega ciddii awoodi karta ama ciddii aan hadda awoodi karaynin inay u diyaar garowdo muddada uu socdo wixii uu kaga soo qayb qaadan karo insha allahu tacaala idinka nool
iyo eheladiinnii dhintay iyo dadkii wax loo sadaqayn lahaa meelaha ugu muhiimsanee in wax loo geliya ay tahay bay ka mid tahay marka sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا